waa muhiim lamaanuhu inay bartaan qofba qofka kale luuqadda jacaylkiisa uu isticmaalaa ama uu daneeyo had iyo jeer. haddii aad dhayalsato waxaa macquul ah in xidhiirka jacaylka halkaas uu ku burburo. waxay ka kooban tahay luuqadda jacaylku 5 qaybood. Number 1 waa inaad ficil ahaan ama hadal ahaan ku muujisaa heerka jacaylkaagu la egyahay si albaabada qalbiga lagaaga furo adigoo oranaya aad baan kuu jeclahay xabiibti, waxaa tahay barkayga barka kala buuxinayay. 2 inaad u qidmayso jacaylkaaga sida inaad cunto u kariso ama guriga u nadiifiso. tani waxay ka dhigaysaa lamaanahaaga inuu ku farxo waxqabadkaaga kuna noqdo maxmiil jacayl dhab ah. 3 inaad u keento hadiyado jacayl ah. tani waa luuqad kale aad ku cabiri karto heerka jacaylka ay kuu qabto lamaanahaaga, ha yaraato ama ha badnaato. isku day inaad hadiyad u keento jacaylkaaga. 4 waa daruuri in waqti ku filan la wadaagto jacaylkaaga si ay u dareento inaad weli jeceshahay. Number 5 haylaabi marnaba taabashada jirka sida dhungashada, habsiinta iyo weliba gacan qabashada. dabcan waa luuqad kale u gaara lamaanaha isxalaashaday. imise nooc ayuu jacaylku ka kooban yahay? waxaa la sheegaa inuu ka kooban yahay 8 qaybood. 1 jacaylka Allah. 2 jacaylka nabiga alayhi salaatu wasalaam. 3 jacaylka waalidku ubadku u hayo. 4 jacaylka lamaanaha. 5 jacaylka walaalaha iyo asxaabta. 6 jacaylka dhabta ah. 7 jacaylka dhalanteedka. 8 jacaylka wadankaaga. wiil baa hooyadii wuxuu weydiiyey su'aashan: hooyo maxaan sidee baan ku ogaan karaa gabadha sida saxda ah ii jecel? jawaabtu meel dheer kamay doonin hooyada. jawaabta waxay ku tiri: hooyo maxaan markaad adigu noqoto wiilka saxda ah ayaad la kulmi doontaa gabadha saxda kuu jecel. wiilow gabadhay, jawaabta sidaas ayay sax ku tahay. noqo adigu marka hore qof wanaagsan dhaqan ahaan. ogow shakhsiyaddu waa 2 qayb: shakhsiyadda muuqaalka iyo shakhsiyadda dhaqan ahaan. tan qofka lagu qiimeeyo waa tan dhaqanka qof ahaaneed. awdayma la'aan. jacaylkuma hawl yaro qofku helo waa u halise naftana hadimuu badan. waa su'aal mudan isweydiin. midkeebaa ku horeeya sheegashada jacaylka, ragga iyo dumarka? siday sheegaan daraasaduhu waxaa ku horeeya ragga, balse ka sheekaynta xidhiidhka jacaylka waxaa ku badan dumarka. qaabkee ayuu jacaylka ugu dhashaa ragga iyo dumarka? wuxuu ugu dhashaa aragtida koowaad. tusaale, inaad la kulanto qof dooqaagu ka helo sida cilmi iyo hodan oo kale ama barasho. marka ruux isbarataan waa macquul inaad ka hesho qofkaasi dabci ahaan ama uu ku soo jiito shakhsiyaddiisa. maqal ahaan in lagaaga sheekeeyo qof kadib aad ka hesho waa wax dhici kara, laakiin waa naadir middan uma badna bulshada. mudan iyo marwo, ma taqaanaa sababta jacaylku muhiim ugu yahay nolosheenna? qofna ma noolaan karo nolol farxad ku dhisan jacayl la'aan. hadday loolamaan lacagta iyo jacaylka, midkee ayay guusha raacdaa? waa dhankiina jawaabta. u qaado shaqo gurileelisa badweynta jacaylka maanta, beri iyo saa damba iyo saaku. haddaynu falanqayno miyaynu ka bixi karnaa? jawaabtu waa maya. la socotaa kataako taxanaha barnaamijka dhakhtarka jacaylka. hadda see dareeme halkay maraysaa? يا